wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan kusoo dhawaada warbixin oo aan si gaar ah aan diiradda ugu saarayo doorashada qof iyo cod ay dowladda federaalka Soomaaliya doonayso iminkan ma ka hirgeli kartaa Soomaaliya doorasho qof iyo cod in la qabto mase waa aysan ka hirgeli kareynin fadlan warbixinta hoose ku dhageyso waa maxay sababta ay u diidan yihiin xildhibaano iyo maamul goboleedyada qaar kamid ah dalka Soomaaliya ka jira in la qabto doorasho qof iyo cod ah aanu ku bilaabay faahfaahinta warbixintan ee fadlan haddii aad inagu cusub tahay follow inoo dheh page-ka siina share garay mahadsanid markii aan soo arooriyay fakirada dadweynaha qaabka ay u arkaan doorasho qof iyo cod in dalka laga hirgeliyo waxay ii sheegeen warbixinta hoos ku xusan waxaa jiro maamul goboleedyo iyo weliba xildhibaano Soomaaliyeed ah oo ay aragtidooda ka wada siman yihiin xildhibaanada qaar ayaa aaminsan in wadanka laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah kuwana waa ay ka soo horjeedaan taasi bedelkeedana waxa ay door bideen ateendadii hoosteeda in la tago iyadoo oo aan ogsoonahay in ay suurtagal tahay in la qabto doorasho qof iyo cod ah aanan u baahnayn wax sidaasi u sii weyn oo kaliya loo baahan yahay dhammaan maamul goboleedyada ka jira dalka in ay bilaabaan sidii loo diiwaangelin lahaa dadka degan gobolada ay dowladda hoos yimaadaan isla markaana ay ka taliso dowladda federaalka Soomaaliya shuruudaha loo baahan karo waxaa kamid ah waxaa loo baahan yahay in dadka la isku waco lagana dhaadhiciyo ama looga hadlo sidii dalka doorasho qof iyo cod ah uga dhici lahayd ayna iyaga u doortaan madaxweynaha ay isleeyihiin waasad madabixin kara dalka waa in dhammaan maamul goboleedyada ay bilaabaan sidii loo diiwaangelin lahaa bulshada ku dhaqan deegaanada hoos yimaada maamul goboleed kasta si loo helo tirada guud ee dadka codeynaya waa in loo qaybiyaa kaararka aqoonsiga muwaadinka Soomaaliga ah isla markaana uu ku dooran karo shaqsiga uu asigu rabo dhammaan maamul goboleedyada iyo kan gobolka Banaadir waa in ay ka shaqeeyaan sidii loo diiwaangelin lahaa dadka ku nool deegaanadaasi isla markaana laga dhaadhicin lahaa muwaadin kasta in doorashada muhiim ay u tahay mustaqbalkiisa iyo kan caruurtiisa kaarka diiwaangelinta shaqsiga muwaadinka ah waa in uu ahaadaa bilaash ama lacag la'aan cid isdiiwaangeliso ayaa la weyn doonaa haddii laga dhigo lacag sababtoo ah dowladda ayada ayaa hadda ay u baahan in ay shacabka ku qanciso wax waliba ay u baahan yihiin si loo gaaro hadafka la hiigsanayo ee doorasho qof iyo cod ah haddaba aan eegno xildhibaanada maxay ku diidan yihiin doorashada qof iyo cod ah tani waxaanu u kala qaadaya laba qodob oo kaliya oo aanan ku sii fogaanaynin danaha gaarka ah xildhibaanka marka asiga la soo doorto ama qaabka odayaasha ama kii deegaanka ahaa ee qof iyo cod waxa asiga ka baxayo qarashaad aad u badan haddana waxa uu ka cabsanayaa in uu waayo qof asiga u codeyso sababtoo ah inta uu hadda kursiga ku fadhiyay waxba uma uusan qaban dadka iyo deegaanka uu asigu ka soo jeedo waana sababta uu ku xulanayo doorasho dadban oo ka dhacda ateendada shalay lagu soo doortay haddii qof iyo cod ay shacabka ku soo doortaan xildhibaanka waxaa meesha ka baxayo doorka uu ku lahaa doorashada madaxweynaha dalka oo xildhibaanka shalay asiga soo dooran jiray madaxda dalka kaasoo cod qarsoodi ah ku ridi jiray sanaadiiqda codadka loogu talagalay asigoo laga yaabo inuu 5 ilaa 6 musharax lacag ka soo qaato adiga ku codeynaya laga yaabee inuu ku soo qaato laga yaabee inuu intaasiba u codeynin uu qof kale ama cod halaysan uu ku rido sanaadiiqda waxa uuna mar kale halkaasi ku weynayaa lacagihii ugu badnaa ee uu ka heli jiray xiliga doorashada markii oo la sameynayo doorasho dadban daawade haddii aad nala soo gaartay dhamaadka warbixinteena fadlan haddii aad ka heshay follow inoo dheh page-ka like-ta ku qabo sina share garay mahadsanid